haddaba maalmihii ugu dambeysay waxaa aad loo hadalhayay baraha bulshadana lagu falanqeynayay meherka faraha badan oo gabdhaha Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay ay ku xirayeen ragga Soomaaliyeed ee hasaabo wadaaga yihiin. haddaba wixii ka dambeeyay markii Cayuuni Qurux lagu meheriyay 200 oo garaan oo dahab, gabdhihii Soomaaliyeed waxa ay bilaabeen qaarkood in ragga ay shukaansanayaan ama ay hasaabaha la sameynayaan ay ku xujeeyaan in sida Cayuuni Qurux oo kale loo sameeyo aroos aan caadi ahayn loo dhigo meherkana la qaaliyeeyo, taasi oo ragga badankii ku qasabtay in gabi ahaanba ay ka cararaan shukaansiga iyo hasaawida ay la sameynayaan dumarka. haddaba 2 wiil oo Soomaaliyeed ayaa guursaday isla markaana nolol la wadaagay 2 gabar oo cadaan ahi. mid waxa uu guursaday gabar ka soo jeeda Suuriya, halka midka kalena uu guursaday gabar ka soo jeeda Morocco. taasi waxaa sababteeda iska leh dumarka Soomaaliyeed oo ragga Soomaaliyeed ee ku qaaliyeeyay meherka tirada badan, inkastoo ragga Soomaaliyeed hadda yihiin kuwa inta badan aan shaqo haysan isla markaana dhaqaalahoodu uu yahay mid aad u hooseeya. haddaba meherkan waxa uu fiican khayrkana uu ku jiraa kan ugu yar. xadiis nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyay ayaa sidaas ahaa, inkastoo haddii waxa lagu heshiiyeen ay habboon tahay sidii lagu heshiiyey in markaasi loo fuliyo. meherka igu soo orod maahan. dumarka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in markaasi si aan loo furin ay meherka u qaaliyeeyaan, halka ragga Soomaaliyeedna ay markaasi tahay shiiqo ugu meheri ha iga xoqoqdee. taasi oo inta badan lagu tilmaamo in ragga Soomaaliyeed ay joogteeyaan furiinka tirada badan. waxaase la yaabaa iyadoo ragga Soomaaliyeed lagu yaqaano caadiga dhaqan ay u leeyihiin in ay ku degdegaan furiinka sababaha keenay in meherka lagu qaaliyeeyo. meherka furiinka kaliya kuma xirnee gabadha xilliga ay doonto ay ku dhihi kartaa meherkayga isi, inkastoo haddii gabadha ay ninka weydiiso meher loo arkaba in meeshaasi uu furiinka dhalanayo. haddaba 2 wiil oo Soomaaliyeed oo aad u faraxsan isla markaana dhahaya annagu diyaar uma nihin inaynu bixino meher qaali ah ayaa guursaday isla markaana nolol la sameystay gabdha cadaan ahi. gabdhow haddii aad sii wadaan inaad qaaliyeysaan meherka, ragga Soomaaliyeed gabi ahaanba waxa ay guursanayaan ama ay nolol la wadaagayaan gabdho kale, meeshaasina waxaa ka dhalanaya in falgal badan uu ka dhaco. waxaase qurux badan maadaama wiilka Soomaaliyeed uu yahay wiil walaalkaaga, diin dhaqan aad wadaagtaan, waxa ay la qurux badan oo ila habboon in meherka aad yareysaan. nolosha isaga uu u baahan yahay adna waad u baahan tahay. isaga haddii uu u baahan yahay in aabba la dhaho, adiga qudhaad waxaad u baahan tahay in hooyo lagu dhaho. 200 oo garaan haddii lagugu meheriyo ama 1 garaan oo dahab haddii lagugu meheriyo ama 100 ama $50 haddii lagugu meheriyo, meherku waa isku mehere. waxaase ila qurux badan inaad u takhfiifisaan. haddaba sheekada guurka labada nin ayaa aad u qabsatay baraha bulshada, inkastoo labada nin aysan ku qaldaneen inay nolosha la wadaagaan gabdho cadaan ahi, maadaama lagu qaaliyeeyay meherka waxay ku qasbanaadeen inay sameystaan nolol qurux badan ka duwan kuwa ay hore ugu jireen. waxa ay leeyihiin annagu diyaar uma nihin inaynu bixino meher aad qaali u ah, waxaynu u baahannahay inaynu aabbo noqonno. taasina waxaan ku qasbannahay inaynu nolosha la qaybsanno. qofka aan isleenahay noloshu waa aad la wadaagi kartaan. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwa. Nikah you to my daughter Nur Sarah binti Azhar with a mahar of 10,000 ringgit Malaysia in full settlement. I accept the marriage to Nur Sarah bint Azhar with meher of 10,000 ringgit in full settlement. Simple, right? Yeah. Now, Kita nak Okay. betul? we do it exactly actual now. Saksi tak dengar betul. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Amin bin Muhammad Yusof, I nikah you to my daughter Nur Sarah binti Azhar with a mahar of 10,000 ringgit Malaysia in full settlement. I accept the marriage to Nur Sarah bint Azhar with meher of 10,000 ringgit in full settlement. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 10 ringgit, thereby causing the talaq, obeying her by way of talaq. What? Yeah. sementara ini sebulan daripada tadi. Sarah lah. Sarah. Hantar ke? Pejabat agama. ahoobay ifraaqu ruuxey qaaliluulay qiimo badani uma soo soco ahoobay ifraaqalanjoy ninku qaayay muuqasaani u yar soo soco haddii aad nagu cusubtina subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno. haddii aad horey inoola joogteen madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin tal iyo tusaale haddii aad inoo haysaan qaybta comment inoogu reeb waan idin akhrin doonaa.